بسم الله الرحمن الرحيم. جمهورية جيبوتي oo la kaashanaysa wakaaladda horumarka Faransiiska ee AFD iyo midowga Yurub ayaa waxa ay dhaqaajiyeen qaybta labaad ee mashruuca dhinaca faydhowrka ee magaalada Djibouti kuwaasi oo dib u dayactirka qasaabka mulasha ee biyaha qashinka qaada waxaana ay taabanayaan xaafadaha kala duwan ee caasimadda gaar ahaan degmada Balcawsta xaafadaha kala xaafadda shanaad lixaad toddoba biis iyo xaafadda leer ay siteystad mashruucan waxaa ka faa'iideysanaya in ka badan 30,000 oo qof oo ku dhaqan xaafadahaasi kala duwan adeegyada dhinaca nadaafadda ee laga hirgelinayo waxaana ku baxaysa lacag ka badan 40 milyan oo euro oo mid ay maalgelinayso wakaaladda horumarka Faransiiska ee AFD iyo midowga Yurub mas'uuliyiinta dawladda qaar ka mid ah xubnaha xukuumadda ugu horeeya wasiirka beeraha biyaha taranka xoolaha iyo ka faa'iideysiga kheyraadka badda iyo sidoo kale danjiraha Faransiiska u fadhida Djibouti iyo danjiraha midowga Yurub ayaana u joogay dhaqaajista mashaariicdaasi qaybta labaad ee dhinaca nidaamka faydhowrka ee Djibouti haddaba waxa halkaasi ka hadashay danjiraha Faransiiska u fadhida Djibouti madam Dana waxaana ay bogaadisay dadaalka kala duwan ee wakaaladda biyaha iyo nadaafadda Djibouti ee Onayad kuwaasi oo door muhiim ah ka qaadanaya hirgelinta mashruucani oo ku ahmiyad ballaaran ugu fadhiya xaafadahani oo faydhowrkooga laga shaqeynayo kuwaasi oo iyagu sidoo kale hoos u dhigi doona lana tirtiri doono cudurrada kala duwan ee kaneecada ay ka mid tahay ee ka dhasha sidoo kale danjiraha midowga Yurub u fadhida Djibouti madam ayaa halkaasi ka hadashay waxaana ay bogaadisay dadaalada kala duwan ee iskaashi ee jamhuuriyadda Djibouti midowga Yurub iyo wakaaladda horumarka Faransiiska AFD kuwaasi oo ku tacalluqa dardargelinta waxyaha dhinaca faydhowrka nadaafadda ee caasimadda Djibouti gaar ahaan xaafada ka mid ah degmada Balcawsta